بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Dr. Saadiq Maxamuud Aadan, agaasimaha isbitaalka guud ee gobolka Mudug Regional Hospital. haddii aan warbixin yar idinka siiyo, shirkadda nadaafadda ee deegaan dhowr waxay isbitaalka kusoo birtay ay shaqo nala bilowday muddo laga joogo ilaa iyo dhowr bilood, 3 bilood iyo ay nala joogeen. runtii waxaan aad uga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ay nadaafadda iyo bilicda isbitaalka ay kor ugu qaadeen. runtii waa shirkad u diyaarsan, u qalabaysan, u tababaran in ay ka qayb qaadato, korna u qaado nadaafadda iyo bilicda xarumaha ay ka shaqeeyaan. si gaar ahaaneed isbitaalka marka laga hadlayo nadaafadda, midna waa midda muuqata ee qashinka iyo biomedical waste-ga patientska ka soo baxa iyo qaabka loo nadiifiyo. iyo markii isbitaal la joogana waxa weeyaan nadaafadda waxaan si gaar ah aan u fiirinaa waxyaabaha ka dhasha cudurrada ee jeermiska ay keenaan, infection prevention and control, oo ah in nadaafaddii intii muuqatayna la hagaajiyo, jeermiskiina materials gaar loogu talagalay lagula dagaalamo si halkaas uusan uga dhalan infection, loogana hortago xanuunada dadka qaba ee yimaada inaysan ku dhex faafin isbitaalka. marka waxaan aragnay in shirkadda nadaafadda ee deegaan dhowr ay si wanaagsan shaqadeedii u qabsanayso, inay wax ka bedeleen nadaafaddii guud ahaaneed isbitaalka, inay kor u qaadeen bilicdii iyo nadaafaddii. waxay si gaar ah ay ugu tababareen shaqaalihii ka shaqeynayay nadaafadda iyagoo tababar sare siiyey. runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. waxaan dareennay isbeddel wanaagsan, waana ku dhiirigelinaynaa shaqadaas ay hayaan. nadaafaddu waa wax aad iyo aad muhiim ah, diin ahaan iyo dhaqan ahaan iyo caafimaad ahaanba intaba wax aad iyo aad u wanaagsan. isbitaalka dad kala duwan ayaa ka shaqeeya, laga soo bilaabo dhakhaatiir ilaa iyo meesha u hooseysa nadaafadda, ma kala maarmaan. dhakhtarka si kasta uu shaqadiisa caafimaadka uu u dadaalo, haddii nadaafaddii ay xun tahay waxa adag in bukaankii uu sidii la rabay uu caafimaadkii lagula tacaalayay u helo. marka shirkadda deegaan dhowr runtii waan u mahadcelinaynaa. waxaana jeclaan lahayn inay adeegooda ay meel walba gaarsiiyaan. si gaar ahaaneed bahda caafimaadka waxaan ku boorinaynaa in isbitaalada iyo xarumaha caafimaadka ay ka faa'iidaystaan shirkadda, si ay runtii ugu adeegaan bukaanada xarumaha caafimaadka jooga iyo isbitaalada si wanaagsan. dawada iyo la tacaalidda lagula tacaalayna ay miro dhal samayso. haddii dawada aada siisid dhakhtarkuna si fiican u baaro, laakiin areadii lagu shaqeynayay aysan infectionkii aan laga dilin oo disinfection fiican aan lagu sameynin, waxa weeyaan in xanuunkii fido ayaa halis noqonaysa. marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin. shirkadda waa nala shaqaysay, waan ku faraxsannahay shaqada wanaagsan ay noo hayaan. bulshadana waxaan ku dhiirigelinaynaa inay ka faa'iidaysadaan shirkadaas, ay ka qayb qaataan nadaafadda guud ahaaneed ee magaalada. aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.